saddex afar macallin baan haysanaa macallimiintaan haysanaa waxbarashada haddaan soo qaato afar macallin baanu haysanaa saddex macallinna way u baahan tahay in dugsi dhaxal laga keenana kolley dawladda iyo hay'adaanu ballansannahay in lagu daro inta labada fasal ka hadhay saddexda fasal ka hadhay iyo feedingkii in carruurta loo keeno maadaama carruurtu waxay ka yimaadaan 8 kilomitir waa garanaysaan ilmo yaroo dee ula gelaya amba sanadkii koowaad meesha masaafada soo soconaya feeding buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay kabo mar inaad dhiiri gelisaan oo saamuun u keentaan oo dhar yar u keentaan kolley qayb weyn bay ka qaadanaysaa qoladiina qurba joogta farxadna way idin tahay ood boorsada hablaha yar dad u keentaan waayo habluhu way naga tagaan waxaana nooga tagaan dhaqaalaha aabbahoodan ku filay waa markaan wax ka barashada ka hadlayo caafimaadka haddaan ka hadlayo waa PHU meesha waxa center baynu ku haynaa inaan u gudubnaan doonanaa xanaano oo hooyada iyo dhallaanka jeel and mother inaan u gudubnaan rabnaa oon u soconnaa shuruudii ay lahaydna waan buuxinay hadday tucaalam UNICEF tahay iyo dawligaba hadday tahay waanu buuxinay shuruudii populationku waxa weeyaan ilaa 8,100 personally ba halkan ku nool waa population aad u fara badan hospital bay u baahan yihiin laakiin intaan u karanaan u beexaaminaanu haynaa dawada waa la iibsadaa idinka laftiina dawada inaad wax ka tartaan baan jecelahay oo 2 qol 4 qol baan haysanaa way qolabaysan yihiin marka maxay naga dhiman MCH waan sid diyaarsan karaa haddaan 2 qol ku daro qurba joogta u taala 2 qol inay ku daraan inta waxaan ka codsanaa 2 qol inay ku daraan waayo dee ilaa 12 qof oo shaqaalaha oo dhalinyarteen wax baratay shaqada geli doonta haddii ay buu yiraahdo ka war xagga beeraha waxaan ku raada xagii beeraha maxaa beeruhu may baxaan dadku maxay beertaan muddo 2 sano abaara jiray isbeddelka cimilada ee adduunka u buugay taqsina ku yaala geedqsi ma waa geedqsi waa ninkii geedkii weey horta ereygaasi ayaan u cudur daaranayaa in dadku aad u fahmaan geedqsi weeyaan taasaan ka cudur daaranayaa in dadku soo ogaadaan horta sax geedqsi weey waa UNICEF ta website waxaad ka heli kartaan headline-kiisa sare waxa ku taala geedqsi waan bedelnaa geedqsi weey qurba joogta aad maqlaysiin ma oranay magaca geedqsi lama oranay waa geedqsi weey saasaad qoraysiin quruxii waxaan iska deynaysin waxa weey beeraha markaan ka hadlo 2 sano abaara dhacay wax dalag oo ka soo go'o beeraha laga soo qaaday ma ay jirin haba yaraatay sidaa darteed dhulkani waa dhul biyaha la jaara 13 kilomitir baa looga qaaday dila ayay u jirtaa biyo waa dhaqaaqeen waa la cabayaa maanta guula la weey waa biyo burdi ka baxay weey mustaqbalkana waxaan rabnaa inaan marketka sawajaale u iibgeeyno biyaha ood ku maal darsataan idinku qurba joog ahaan ood shirkad maal gashata share inaad ku yeelataan ma jeclahay maadaama halkii aad u dhalateen mishiinku ka qaadayo waana biyo aad u macaan oo bilaa salt oo aad loo saxay oo freesha biyaha hadda burdi laga qaaday waa guuliyan dan labaad bas way inta ku jirto aad wad ma santahay ayaa qofka hadlayna waa indha nuur Umar Cateeye sultaan ku salaamay ya salaam